بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan rabaa halkan inaan ku duubo wargelin muhiim u ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga. Safaaradda Soomaaliya ee Ankara Turkiga waxay dhammaan ku wargelinaysaa muwaadiniinteeda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Turkiga ee u soo doonta adeega dokumentiyada kaga xidhan safaaradda in habkii adeega gacanta lagu qori jiray manual looga guuray habka casriga ee digitalka. Sida daraadeed dadka u soo doonanaya adeega safaaradda waa inay soo qaataan baasaboorka laftigiisa, baasaboorka nool. Waayo systemka lagu shaqeynayo ayaa ah mid baasaboorka la saarayo oo aan copy aqbalayn. Siba dadka u baahan waraqadaha qoyska, family letter, dhalashada, birthday-ga, caddayn, tasdiiqin, kala saarista magacyada, transfer letter, caddaynta doobnimada, sign letter, iyo dhammaan wax kasta oo u baahan in baasaboorka laga qoro. maadaama ay u guurtay systemka qonsuliyadu ay ku shaqeynayso oo yahay online system lagu shaqeynayo, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku boorinaynaa muwaadiniinteena Soomaaliyeed ee ku noqon dalka Turkiga in ay soo qaataan baasaboorka si ay u fududaato adeega loo qabanaya. Waa mahadsantihiin.